بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in ay sii xoojinayso weerarada iyo duqeymaha ay ka wado Mareykanka Gaza iyadoo arrintan ay ku soo aadayso xabajoojin ka jirta aagaasi walow arrintan lagu soo waramayo in ay qarka u saaran tahay xabajoojinta in ay burburiso gaar ahaan weerarada Israa'iil ay wado dhanka daanta galbeedna ilaa iyo 20 qof in ka badan ayaa ciidamada Israa'iil ka qabqabteen oo ku jira duq magaalo deegaanada Falastiiniyiinta ee daanta galbeed ayaa laga soo warinayaa maanta xaalad aad u adag iyadoo ciidanka Israa'iil ay ku andacoonayaan in howlgal muddo dheer socod doona ay ka wadaan halkaasi Hamas ayaa digniin kul arrintan ka soo saartay ugu yaraan 5 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay magaalada Idlib ee waqooyiga waddanka Suuriya wasiirka gaashaandhigga Israa'iilna wuxuu hanjabaad ku bixiyay Lubnaan inay duulaan ku qaadi doonaan haddii Xisbullah hubka aysan dhigin dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii waraha ee soo hayaan iyo koonfurta Mareykanka Gaza xadgudubyo joogto ah oo Israa'iil xabajoojinta ku haysa ayaa weli socota dad goobjooga ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidanka Israa'iil ay burburiyeen dhowr dhisme oo ku yaala xaafadda Al-Shujaaciya ee magaalada Gaza oo ku taala xuduudka khadka yarowga oo maro ama khadka huruudka nidaamka difaaca goobta ama Israa'iil artillerigeeda ayaa la dhacayaa deegaanada ku yaala bariga Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza sida warqaatayaashu ay sheegayaan wax warara oo la xiriira in ay wax gaareen wararkaasi uu geystay lama arko lamana sheegin ciidamada Israa'iil ayaa xabsiga u taxaabay 22 qof oo ay ka xireen waqooyiga daanta galbeed kadib markii ay weeraro ballaaran ku qaadeen deegaano Falastiiniyiintu ay leeyihiin sida warbaahinta ama wakaaladda wararka ee Wafa maamulka Falastiiniyiintu ay sheegayso waxaana la soo xiganayaa in Falastiiniyiinta naadi ay leeyihiin oo ah kuwa maxaabiista daryeela in weerarka uu ka dhacay dadka gacanta lagu dhigay ee la xirxiray oo howlgallada Israa'iil ay ku qaaday dooxada Jordan ama Urdun meesha uu ku yaalo naadigaasi oo Tabas la yiraahdo gobolka ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in lagu qabtay in la yiraahdo Kamaal Bani Awada wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan Samiir Basharaat oo ah duqa magaaladaasi ayaa asna gacanta lagu dhigay oo militariga Israa'iil ay ku xireen waqooyiga daanta galbeed sida warbaahinta Falastiiniintu ay sheegayso ururka Hamas ayaa ugu baaqaya jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay inay si dhaqso ah tilaabo u qaadaan ay kaga hortagayaan ama ay ku joojinayaan ciidanka Israa'iil deegaanada iyo mashaariicda deegaanada ay sameynayaan Hamas waxay kaloo bayaankeeda ku sheegtay in xukuumadda Israa'iil ay isku dayayso in ay xaqiiqo dhulka ka samayso oo mashaariic ay ku yahuudeynayso kuna qarameynayso daanta galbeed ee wado iyadoo xadgudub ku sameynaysa qawaaniinta caalamiga ah saraakiil xagga ammaanka ayaa digniin ka bixinaya in golaha wasiirada ay dhowaan maalmihii ugu dambeeyay ay sheegeen Hamas in ay si weyn gacanta ugu hayso qaybo ka mid ah magaalada Gaza sida laga soo xigtay janaalka 13aad ee Israa'iil laga leeyahay janaalkaasi ayaa sheegaya in wasiirada ay u sheegeen 13 ilaa iyo 25 deegaan oo gacanta ugu jira ururka Hamas in booliiska ay shaqadooda wadaan jidgooyona samaysteen waxaa kaloo ay ka shaqeynayaan baa la yiri in ay dhisaan kaabayaashii waxyeeladu gaartay si ay sumcadooda dadka Falastiiniyiinta dhexdeeda u hagaajiyaan saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa laga soo xigtay ayaga oo sheegaya ama ugu baaqaya xukuumadda Israa'iil inay qorshe la timaado ay hubka uga dhigayso Mareykanka Gaza waxayna sheegayaan in hindisaha dowladda Mareykanka oo hubka looga dhigayo ururka Hamas inuusan ku filnayn wasiirka dagaalka Israa'iil Katz ayaa ku hanjabay inuu tallaabo military oo ka dhana waddanka Lubnaan u qaadi doono si uu hubka uga dhigo ururka Xisbullah haddii ururka Xisbullah uu hubkiisa dhigi waayo dabayaaqada sanadkan
arrintan ayaa waxa ay ku timid hadal uu ka jeedinayay kulan baarlamaanka dhexdiisa laga siinayay guddiga arrimaha dibadda iyo ammaanka. sida uu sheegayo janaalka 7 Maraykanka ayuu yiri wasiirka dagaalka ee Israa'iil waxaa ka go'an in xisbigaasi uu hubka ka dhigo ka hor intuuna sanadka dhammaan. hase ahaatee u malayn maayo yiri inay taasi dhacayso. Katz wuxuuna intaas ku daray haddii ay taa dhici weydo khiyaar kale ma jiri doono buu yiri in Israa'iil ay tallaabooyin xoog la qaado oo ka dhana ururka Xisbullah ee Lubnaan ku sugan. Katz hadaladiisan ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo Israa'iil xadgudub ku sameynayso xabad joojintii ururka Xisbullah lala gaaray. sidoo kale maalin walba ayaa Israa'iil weerar waxa ay ku qaadaa Lubnaan. sidoo kale waxa ay wadaa weeraro ay adkeyn deegaano 5 buurood ay koonfurta Lubnaan ka qabsatay. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay qarax ka dhacay meel hub lagu keedinayay oo ka tirsan deegaanka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya sida ay wakaaladda wararka sheegayso. bayaanka ayaa lagu sheegay hubka cidaasi lahayd lama yaqaano. hase ahaatee gobolka Idlib ayaa waxa uu yahay goob ay ku badan yihiin dadka jihaadistayaasha sida hadalka loo dhigay iyo kooxo mucaarada oo ka soo horjeeda xukuumadda hadda xukunka haysa. sidoo kale markhaatiyaal ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo badan oo iska soo horjeeda militarigooda inay xarumo ku leeyihiin. hase ahaatee xukuumadda wax warara kama ay soo saarin sababaha keenay qaraxaasi. difaaca ama amniga gudaha ee Idlib ayaa tilmaamaya in qaraxaasi waa mid weyn oo ka dhacay meel ku dhow tuulada Kafar Takhrim oo la sheegay inay tahay goob uu ku yaalay maqaasiin weyn oo gantaalada iyo rasaasta lagu keydiyo. natiijada qaraxaasina waxaa la sheegay mid ka mid ah dadkii ka shaqaynayay in uu wax isdaba mariyay. وهجاك محمد وما سنت هاي داود ياشر وما سيهين مركله أيام سود ويننا داود يا الواحد يقول بينا جوردو وركي وحي سوكرنا شني أفرتن أنت إنه برنامج كوتشرني واربع كسوكرني أريتن محل لقوا معني بحيث قبرضة كتري سريغاس فايز الدواري أيا واحد وشيء يا إن دردرجلينتا howlgalladani ee Israa'iil ee ka dhanka ah daanta galbeed in gaar ahaan ay tahay howlgal aad u ballaaran oo ka dhana magaalada Tubas waxay u muuqataa inay tahay tilaabo hor u dhacwa in maamul iyo gacan ku hayn dhinaca Israa'iil ah lagu soo rogo dhammaan gobolkaasi. sida Al-Jawaari uu sheegayo weeraradaasi ayaa waxaa aroornimadii lala beegsaday Tubas waxaana sidoo kale la galay guryo waxaana guryahaasi ay ka samaysteen ciidanka Israa'iil goobo ciidamadooda ay dhigtaan. waxaana muuqata in tallaabooyinkani aynan ahayn kuwa kooban ay yihiin kuwa istiraatiijiyada oo ballaaran. lafagurayaasha Al-Jawaari ka mid yahay ayaa ku xiriirinaya dardargelinta hawshani inay tahay go'aan baarlamaanka Israa'iil uu qaatay iyadoo soo tarayso in xadgudubyada ay sameynayaan dadka deegaanada loo sameeyay oo ku doodaya in la rabo in la isu diyaariyo wajiga soo socda oo ah waji culus wixii ka dambeeyay Oktoobar 7 2023 waqooyiga daanta galbeed ayaa oo ay ka mid yihiin deegaanada Tubas, Janiin iyo Tulkaram ayaa cadaadis xoog leh militariga Israa'iil ay ku hayeen. hase ahaatee Israa'iil ayaa raadinaysa in ay burburiso xarumo barakacsan dadka Falastiiniyiinta ah bartilmaameedkana ay ka dhigato gaar ahaan xeryaha qaxootiga. Al-Jawaari ayaa hoosta ka xariiqay halka Israa'iil ciidamadeeda ay aad u geysay deegaanadaasi haddana weli lama ayna wareegin deegaanka oo dhan sababtoo ah waxaa jira howlgallo xaafadaha qaar ay caqabada ku ah oo dadka deegaanada loo sameeyay iyo dadka Falastiiniyiinta dhex maraya. dhanka kale waxa uu sheegay maamulka Falastiiniyiinta inta badan waa ka aamusan yahay arrintani. hase ahaatee ururka Xamaas iyo ururada kale ayaa cambaareeyay howlgallada Israa'iil ee wado oo ay ku tilmaameen inay tahay dadaal ay rabto Israa'iil in dadka Falastiiniyiinta ku barakiciso isla markaasna awoodeeda ay ballaariso burburisana dhammaan deegaanada ku yaala daanta galbeed. waa gartay dhanka aynu ka eegno wararka kale ee la xiriira hanjabadan ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ee Lubnaan la xiriirta sidoo kale kaasna waxaa lagu soo warramayaa inay tegi doonaan
wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay arrimahan isku soo beegmaya iyo hanjabaadan maxaa laga yiri maxamed wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa booqanaya Syria Lubnaan gaar ahaan deegaanada xiisadu ka taagan yihiin ee Israa'iil iyo Hezbollah ay isku horjoogaan guddigan ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee booqashadiisa Syria iyo Lubnaan ayaa dhacaysa toddobaadka soo socda waxaa loogu magac daray howlgalka Solovian waxaana horseed ka ah ninka guddoomiyaha u ah golaha safarkan wuxuu bilaabanayaa bishii December safiirada 15 xubnood oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubinta oo ka mid yahay safiir Soomaali ah ayaa booqan doona magaalada Dimashq December 4teeda 4 maalmood ka hor inta aan la gaarin maalintii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee wadanka Suuriya Bashar al-Assad diblomaasiyiinta ayaa la filayaa inay kulan la yeeshaan maamulka cusub oo ka mid yahay madaxweyne Ahmed al-Sharac iyo mas'uuliyiin kale sida warbaahinta ay ku waramayso iyadoo qaramada midoobay ay ka shaqeynayso sidii lagu abuuri lahaa dalka Suuriya in amnigiisa la xoojiyo haddana golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa cunaqabatayntii dhawaan ka qaaday ka dhanayd madaxweynaha wadanka Suuriya oo hore loogu sheegayay inuu ahaa nin ka tirsan ururada dagaalama waxaana laga dalbay in uu meel mariyo isbedel wax ku oola saraakiisha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale u safri doona magaalada Beirut December 5teeda waxayna tegi doonaan koonfurta xuduudka Israa'iil halkaas oo ay kula kulmi doonaan nabadgelyada qaramada midoobay ee loo yaqaano UNIFIL oo la filayo in ay wadanka Lubnaan ka baxaan dabayaaqada 2027 kadib markii halkaasi ay ka shaqeynayeen ilaa iyo laga soo bilaabo 1978 booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Lubnaan ay ku eedeynayso Israa'iil inay xadgudub ku samayso xabad joojintii la gaaray November 2024 waxaana sidoo kale ay leeyahay colaadda ay Israa'iil wado ayaa baryahan dambe duqeyn xagga cirka iyo xadgudubyo ay geysanaysaa waa gartay waa yahay ilaa hadda maxamed waxa laga warsugayay Hezbollah waxa jawaab ay bixiso taliyihii la dilay laakiin ilaa hadda waxba lagama hayo akhyaaraadka farabayna ka mid ahayd inaysan ka jawaabin suurtagalnimada arrintaas inkastoo la leeyahay Sheekh Naciim Qaasim xogayaha guud ee ururka wuxuu ka fakarayaa tilaabadii la qaadi lahaa maxay arrintan noqon kartaa baa la leeyahay dhinaca Israa'iil ayaa hadda warar ka soo kordheen oo ah wasiirka dagaalka ama wasiirka difaaca Israa'iil ayaa hanjabaad jeedinaya inuu xoog ku meel marinayo hubka uga dhigayo ururka Hezbollah laakiin arrintaasi suuragal uma aha inuu sameyn karana uma eka laakiin dhinaca Hezbollah marka la fiiriyo khiyaaraad fara badan ayaa hore barnaamij uga sameynay lama yaqaano ururka Hezbollah waxay sameyn doonaan laakiin waxa xaqiiqa Hezbollah inay awood leedahay gacan saarna la leedahay ururo kale oo iska caabin ah ay Xuutiyiintu ka mid yihiin oo ururka Hamas ka mid yihiin dowladda Iran ay ka mid yihiin khiyaaraadka marka Israa'iil ay waxay doonto ku sameyn karto wuxuu u badan yahay hadal propaganda Israa'iil haddii dagaal Hezbollah ballaaran haday la gasho dagaalkaasi ma noqon doono dagaaladii hore u dhici jiray wuxuu noqon doonaa dagaal keena dhimasho iyo burbur badan marka laga gudbo duqeynta xagga cirka oo Israa'iil ay ku xoog badan tahay ciidankeeda qoraaladii dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ee saxaafadda Israa'iil ay qoraysay ayaa aad looga hadlayay in ciidanka Israa'iil aad u liito marka ay timaado dagaalka lugta ah hanjabaad inuu jeediyo waxay u badan tahay inay xagga cirka tahay hadda cirkana hadda xadgudubyo badan ay geystaan waana la soconaynaa wixii ka soo kordha laakiin Naciim Qaasim iyo ururka Hezbollah in ay jawaabi doonaan ilo aanan Lubnaan ahayn ayaa sheegay oo ku dhow sida laga soo xigtay warbaahinta qaar wadanka Iran waa gartay Hezbollah hadii diido laakiin inay hub ka dhigto arrintaas inay ka soo horjeedo Israa'iil maxay kala sameyn kartaa duqeymahaas ma ahanay markaas ma dhalin kartaa in cadaadis gudaha uu ka soo fuulo oo xukuumadda Joseph Aoun hogaamiyo ay ku qasabto Hezbollah
in intii shicibka la layn lahaa dhulka la burburin lahaa ay nabad qaataan hub ka dhigaan misaarintaas arrin socon karta maaha naciim qaasim si buuxda ayuu u sheegay habeenkii xale oo tegey ayuu ku sheegay in hubka ururka xisbullah dhigaan si kale haddii loo dhigo calaacasha oo tima ka soo baxaan khabiirada qaarna waxay hadalka u dhigayaan dulqaadka ay muujinayso xisbullah ma aha inayna tabar haynin inayna jawaabi karaynin ee waxa weeye waxay fursad siinaysaa dowladdan daciifka ah ee maraykanka iyo faransiiska ay ku riixayaan in ay xisbullah hubka xoog uga dhigaan tabarna uma laha taagna uma laha way ogsoon yihiin waxaana muuqata hadda in dagaal haddii u dhaco uu noqon doono waxay door bidi lahaayeen israa'iil iyo saaxiibada israa'iil in halkii israa'iil ay dagaal ka geli lahayd in dagaalka uu noqdo mid dadka lubnaan dhexdeeda ka jira ama ay helaan dhinacyo ururka xisbullah la dagaalama laakiin arrintaasi waa dhib badan tahay hadda ka hor ayaa sunniyiinta waxay isku dayeen inay dagaal la galaan ururka xisbullah dagaalkaasi wuxuu noqday mid kooban oo maalmo keliya socday oo halis geliyey in ay waayaan saameyntii ay lahaayeen marka ay timaado magaalada qoladii sunniyiinta ahay marka xisbullah xooggeeda lama saaran karo tiri ahaanna wax tirikoob rasmiya sameeyey lama arko laakiin siyaasadda lubnaan ayaa waxay ku saraysan tahay madhabo iyo qowmiyado dhinaca ugu xooga badan waa xisbullah dowladda wadaagta ah waxaa inta badan madaxweyne noqda dadka laga badan yahay oo ah masiixiyiinta waxaa wasiirka koowaad noqda sunniyiinta waxaana noqda afhayeenka baarlamaanka shiicada marka awoodda waddanka waa qaybsan tahay kuwa yaryar oo ay ka mid yihiin duruuskana waxa weeye baarlamaanka ayay ka mid yihiin xukuumaddana waxay ka helaan wasiir laakiin sida muuqata haddii uu dagaal dhaco uma badna in dhinacyada kale ay iska caabin karaan ururka xisbullah xisbullahna wax kastoo dhaca waxay ka baaqsanaysaa dagaal lubnaaniyiinta oo dadka reer lubnaan dhex mara laakiin israa'iil iyo siyaasadda ay wado khabiirada qaar waxay leeyihiin waa marin habaabsan tahay ma handadi karto hanjabaadeedana wax ku qaadan maayaan wuxuuna naciim qaasim af buuxa ku sheegay dagaalka waa mid jiritaankeena la xiriira waxa weeye wax kastoo dhaca waxa weeye hub ma dhigeen waa tahay maxamed waa mahadsan tahay waynu arki doonaa wixii kusoo kordha arrimahaas inta ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan kasoo gudbino daawade kusoo biir barnaamijyadeena iyo bogagga bulshada